sida hadda lagu aamiyey in uu noo qabsoomo shir heer sare ah oo aan ku endorse gareynayno ama aan ku taageerayno habka bahwadaagta ay ku naqanayaan dowladda iyo saaxiibada kala shaqeeya adeeg bixinta caafimaadka halkaasna aan ku seexino adduunyadan aan kula wadaagno in dowladda Soomaaliya iyadoo kaashanaysa saaxiibadeeda iyo adeegyaha cusub oo ku aadan horumarinta iyo adeeg bixinta caafimaadka dalka marka waxaan rabnaa inay noqoto chapter cusub oo u bilaabo adeeg bixinta caafimaadka dalka waxaan rabnaa inay qaadno jiha cusub inaan ku sii jirin status quo ama soddonkii sano ee soo dhaafo sida loo maamulayo waayo markaa fiiriso kharashka ku baxo adeeg bixinta caafimaadka dalka iyo natiijada waxaa muuqdaa in farqi weyn u dhexeeyo marka si isla xisaabtankan u kordho quality-ga ama tayada adeeg bixinta caafimaadka u kordho resource-ga aan haysano si wanaagsan aan u faa'iidaysano waa inaan bedelnaa maaragtay qaabka aan maaragtay hadda u maarayn saa daraaddeed roolka oo maaragtay ama kaalinta hore ee dowladda maaragtay ku aadan adeeg bixinta caafimaadka haddii ay iyadu maaragtay qaadato waxaan is leenahay waxaa meesha ka baxayo in adeeg ama isdulsaar u noqdo ama meelaha qaar gaab ay galaan oo ay bannaanaadaan iyadoo lagu halaynayo dad marka waxaan rajaynayaa insha allah shirkaas soo socda in wax badan ku kordhin doono sidaan u maareynayo mashaariicda iyo howlaha la xiriira adeeg bixinta caafimaadka marka hadalkayga halkaas aan kusoo gunaanada waxaan rabaa inoo mahadceliyo dhammaan kasoo qaybgalayaasha ama saaxiibada laga soo qaybgal ka socda maaragtay baartimarada ama ha aadan saaxiibada kaliya maamul goboleedyada ama saraakiisha wasaaradda caafimaadka ee reerkeeda kala duwan oo dhan waxaan rabaa inaan hadalkayga kusoo koobo halkaas